السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا channel كرمي رياضة od alaaba naga heshaan waxyaabo idin xiiso geliya fadlan share garee videogan waxaan idinku soo bandhigi doonaa inta badan adduunyada calamadooda iyo waxaadan ka ogeyn dalkaas hal shay ama labo oo aad ka barato marka daawasho wacan soo dhawaadana dhammaantiin marka haddaan idiin soo qabto dalka ugu horeeya videogan idinka soo qaban doono waa dalka la yiraahdo Algeria waa dalka calanka cagaaran iyo caddaanka leh bishii xiddigta casdexda ugu yaalaan Algeria waa wadanka ugu weyn Afrika dhul ahaan laakiin boqolkiiba 10 ayaa lagu noolaan karin waayo waa saxare ama laba degaan dalka xigaan idin soo qaban doono waxaa la yiraahdaa Benin. dalkan Benin wuxuu ku yaalaa West Africa waa boqortooyo markoowaad waa dalka kaliya ee uu ku yaala calankiisu ku sawiran yahay laba nin oo mid qoorta ka jarayo seef weli uga jarayo boqortooyo seef cabsi dalkaana waxaa la yiraahdaa Benin calankiisu waa kaasa calan cas calankan waxaa iskale dalka la yiraahdo Dominica ama South Africa ku yaalo South America jira South America waa calanka kaliya ee leh midabka purple-ka adduunka calanka kaliya ayaa midabka buluuga iyo purple-ka la yiraahdo dal kale oo dunida leh midabka jiro shimbiriga baa ku soo wareegayna laabteedu purple tahay dalkan waxaa la yiraahdaa Dominica dalka xiga isaga calankiisa idiin soo qaban maayo dalkan waxaa la yiraahdaa Kuwait waa dalka ugu qanisan dunida dalkan wuxuu cajiib ku yahay lacagtiisa halkii shilin lacagtiisa ayaa waxa marka la sarifo dollar lagu sarifayo noqotaa $3.27 weliba macnaheedu boqolkii wuxuu noqonayaa $300 lacag marka iyo weliba iyo $300 dalkan waxaa la yiraahdaa Honduras wuxuu ku yaalaa South America isaguna dalkan wuxuu caan ku yahay sanadkiiba maalin ama laba maalmood waxaa ka dhaca roob leeyahay roobka kalluunka hawada roob ka soo daata arrintan waxaa lagu leeyahay waxay dhacaysay 100 sano iyo ka badan inta la og yahay sanad walba in maalin ama laba maalmood ama dhowr cisho roob kalluun uu soo daatay dalka xiga waa Oman wuxuu ku jiraa dalalka iyagana Middle East ama khaliijka dalalka ugu ladan balse meesha khaliijku dabaqyada iyo daaraha dhaadheer iyo diyaaradaha iyo waxa samaystay iyagoo hantidooda way qariyeen dalkan boqorkoodu wuxuu amray guri kasta oo ku yaala in rinjigiisa caddaan laga dhigo midab kale lama ogola caddaan waa amar boqorka soo fulay dalka xigaan idiin soo qabanayo waa Netherland ninka halka aad ka aragto waa boqorka Netherland ninkan wuxuu cajiib ku yahay 20 sano ayuu wuxuu ka ahaa pilot diyaaradeed shirkad Netherland laga leeyahay KLM la yiraahdo pilot uu ahaa 20 ka sano rakaab uu qaaday diyaarad ku qaaday marna uu sheegay inuu boqorkoodii yahay qofka diyaaradda wada ee marba qaarad wada inuu boqorkoodii yahay wuu ma sheegay ugu dambeyn dalka ugu dambeeya waa dalka Liibiya ma ogtahay dalka Liibiya inuu weligeed hal boqor soo maray hal boqor kaliya weligood soo maray boqorka waxa loo jiray Idris wuxuuna dalka ka talinayay sanadii 1959 ilaa 1969 waa boqor kaliya Liibiya soo maray Liibiya marka magaca Liibiya ma ina waxay lahayd magac la yiraahdo boqortooyada Liibiya markuu boqorkaas ka talinayay barnaamijkii maanta waa naga intaa wakalana waa idin soo wadnaa calanka ku saabsan والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Please like, share and subscribe. إن شاء الله channel قريب كنقف. هذه